dunidu habeena lagu kala horeeya hantida iyo xoolaha cawaynu hayna dunidu habeena lagu kala horeeya hantida iyo xoolaha cawaynu hayna hoyga aakhiro kuma haysta duuniye hoyga aakhiro kuma haysta duuniye kaadimadariyo adiga kaadimadariyo bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan akhyaarta hawada nagala socotay halkani waa telefishinka qaranka Soomaaliland xaruntiisa dhexe ee magaalada Hargeysa barnaamijkan kooban oo aanu ku milicsanayno kuna eegayno mid ka mid ah hal abuuradii dhaqan yaqaankii isla markaana suugaan yahanadii guud ahaan dadka af Soomaaliga ku hadla ay aad u wada garanayaan macallin weyn oo ka baxay fanka Soomaaliyeed Allahu naxariista marxuum Maxamed Warsame Qaasaali oo 5 bisha January 2018 ku geeriyooday dalka Qatar magaalada Dooxa marxuumka oo taariikh fog oo mug weyn ku leh dhaqanka iyo suugaanta Soomaaliyeed macallimiintii wax ka bari jirtay ama wax ka dhigi jirtay iskuuladii dalka kamid ahaa ayaa waxa aan taariikhdiisa si kooban inoo wadaagi doona oo aan wax ka weydiin doona Ibrahim Ali Ahmed Ibrahim Ali Cuule oo ah qof isagu ku xeel dheer xagga taariikhaha iyo isla markaana suugaanta iyo dhaqanka oo inta badan bahda warfaafintu gaar ahaan wasaaradda warfaafinta iyo radio Hargeysa iyo telefishinka qaranka aad ay wax badan aanu uga weydiino oo dadka taariikhda aad u soo ururiya ah Ibrahim ku soo dhawo telefishinka qaranka ugu horeyn waxaan jeclaan lahaa Allahu naxariistay marxuum Maxamed Warsame Qaasaali كموها شخص نوعيها aad baad u mahadsantahay xamse TV qaranka ma uga mahadnaqayaa marskaadkan ay sameeyeen inaan kala qayb galo si aan kelmadeeda uga ilaalo ku saabsan arrintan ka hadlay marka ugu horeysa waxaan taxsiid tiraayin loo dirayaa Allahu naxariistay Maxamed qoyskiisii qaraabadiisii asxaabtiisii bahwadaadka dadka ay ahaayeen ay fanka iyo mihnada macallimada muddo dheer ku soo jiray Allahu naxariistay Maxamed Warsame Qaasaali waxa uu ku dhashay oo ka soo jeeday magaalada taariikhda muga facaweyn ee waxbarashada lagu majeerto ee Sheekh halkaas ku dhashay Maxamed sida family-giisa oo la xiriiray sheegeen 1946 madrasadii quraanka ee bilowgii barbaarinta halkaas ku galay 1953 wuxuu galay dugsiga hoose 1953 wuxuu galay dugsiga dhexe 1961 wuxuu ka baxay dugsiga sare intaas oo dugsi wuxuu ka galay Sheekh way 1960 markii iskuulka dhameeyay Maxamed waxa loo qaatay Allahu naxariistay macallinimo way maadaama uu ahaa nin ku fiican waxbarashada maxaan ku raacay akhlaaq fiican maxamed dabeecad wanaagsan dhaqan fiican mas'uuliyadda qof haanan kara maadaama wax loo goostay inuu noqday nin macallin ah sidii uu dadka macallimiinta ku waday muddo dheer baan macallimiinta ku soo dhex jiray ilaa ma yakun 1966 oo ahayd markii ugu horeysay ee uu dareemay ama uu arkay isaga koox ay kamid yihiin inay sameyn karaan ama ay awood u leeyihiin inay qorin karaan inay soo bandhigi karaan wax ku saabsan shaqadooda marka isaga Allahu naxariistay Maxamed Nuure Allahu naxariisto nin kale loo jiray Muuse Cabdi Cilmi oo jaamacadda Hargeysa markaysan jiray macallimiintii oo ka ahaayeen way fanaaniin waxa yimid jiray oo kale saasoo kala Faysal Umar mushtaaq Allahu naxariistay waxa kale daraagan loo kala jiray Ahmed Ali Harun hadraawi laftiisa hadraawi wuxuu la ologha oladaas oo kale wahagaag Ibrahim Ali aad bad maasantahay Allahu naxariisto marxuum Maxamed Warsame Qaasaali macallimadiisii iyo barbaarintiisii ka sokow wuxuu caan ku ahaa xagga bahda dhaqanka fanka iyo suugaanta heeso fara badan ayaa lagu xasuusan doonaa Maxamed Warsame
الله نحرسته قرمو حق فنك وكسوبيره أنا سيدوي شيء أنا مش خلاص هاي معلمين العلوم في الجامعة ذاك سمعنا كا الحمد لله وحي شيء كوني سيقال بقولي لحي لحدنكي يوا معلمين إن يسميه روايات كوبان أو يقول ترى قليل شقده ده إن يقوليان maxaan ku raacay bulshada iyo dadka ay khusayso oo ah ardaydi macallimiinta laftooda riwaayadaas yare kooban waxay ka hadlaysay waxbarashada iyo faa'iidadeeda waxay kale ka hadlaysay oo dhiirigelin u ahayd qiimaha ay leedahay waxbarashada marka riwaayad yare kooban bay xilligaas soo bandhigeen laakiin riwaayada lama diiwaan gelin oo lama kaydin oo uguma tiragelin waxay wax khusayay iskuulada iyo waxbarashada oo wacyigelin bay ka ahayd أنا كل يسأل بقولي لحد نيستيد بقى محمد إبراهيم ورسمي هو صاحب هاي هدراوي يسكن هنا الله هاي ما دام معلم ذي وفن كراي وذاقي بقى يقول سمير رواية اللي قلت لي هديمة رواية داس هو محمد أكثر كان نضيب وأنا قاسالي محمد ورسمي رواية داس أكثر كان نضيب رواية داس لما أنت واحد قاضت كذا الحين كل سبي من لا بشير حد كان كيسين وتوجه تدري رئيس السعودية يكون مناجري وريها اللي سواء أبوه وين من اللحن ويسيشنا فانكا هركانون سواء قطي محمد مكاس أضيقابا وايد اللحن كذا أي اللحن كذا لها أن هسيه ما دام أكثر كها كتشري أو قاضي لأن حد قاعد تام حكم ذا هسه روايته كتشري واحد نقدر هسه قرحة يعني تابق علي واي ومقاس ما دام سيف عن لو بحقيقة ريف في عن يوميس شين في عن يعطف في عن ليس صاري رواية سيف قرح أدو قرح محمد الله حسن الله حدك الفيء أي مرة واي أدو قصة دح بحي واي مرة رواية سيسها كتري صدق كمذا موضوع بوضع قاضيان واي مثل كمذا واحد ستر هذا ليس طول إسكوية وينو دحيسي أدو ودرارات كقص ليسي دوشة بلهتا إنير أنو تدوينها تبو حسوسينو adigu baa dharaaraad ka qoslaysay dhooshe dibta laysku eegaa waynoo dhaxaysayo adigu baa dharaaraad ka qoslaysay dhooshe anna dhiig sidaan galay qaymaha ku dhuntee anna dhiig sidaan galay qaymaha ku dhuntee sow cawadhaantiyo sow cawadhaantiyo sow filan maysid sow filan maysid sow filan maysid delheel sow cawadhaantiyo sow filan maysid sow filan maysid sow filan maysid delheel
سودا يا مديسة عندما تنسني أني قاعد أديره رصك وعقي سودا يا مديسة waagaag aanu ka soo noqon waa kulay wax xasuusin maaha maanta kulay waa marxuumka kulay inaan aad loogu raaxaysanayo maaha laakiin waa xasuusin marxalado soo maray bay ahayd dibta la isku eegaa way noo dhaxaysaa adigu dharaaraad ka qoslaysa dhoosha aynu ka soo gudubno waxa kale oo ku jiray ruwaayada waxa ku jiray hees labadooda qaadana inay qaadaan hawraarsan hawraarsan waxa saawixni marka harbaad ka hawlyaraysan ka hawlyaraysad leeday in yar bal hadaan dadweynaha dib u yar milicsino hawliyo dhibaatay haysino keento hadalkiinu dhaaxo wadkana horseede nin idin hilooba hana qaadi maaye hawraarsanteeni maka hawl yarayso na ka harbaadi leedahay aynu ka soo noqono wali waa maxamed warsame iyo xalimo khaliif labadooda Allah naxariisto ayaa ruwaayadan heesahan labada heesood aynu soo aragnayba ku looqeynaya heesta saddexaad taban taabo ma kaliya waa qaadim soo way marka actor iyo actorad ka kala ahaayeen ruwaayada inkastoo markii dambe soo heesihii aanu qaban oo maxamed uu qabtay maxamed nurgari sida heesta Suleekhaye ku jirtay waayahay isaga wada qaadi Suleekhaye way waxaan ku raacay isagoo afarta heesood oo kula haasido bishii xadiis ruwaayadaas uu hadraawi sameeyay wahagag afarta ruwaayada hadimo ku sheegay hadima la heesta ruwaayada magaceeda lahayd waan heesta ugu dambeysay waayahay marka waxaan qaadayaa adiga oo halisa maxamed warsame Allah naxariisto way أنا وذاكنا. دنيدو هابينا لقو كالغرية هنتي ذي حولا عويدو هينا دنيدو هابينا لقو كالغرية هنتي ذي حولا عويدو هينا هويغا آخرو وما يستدوري هويغا آخرو وما يستدوري كادما تريو وديغاو كادما تريو وديغاو هويغا آخرو وما يستدوري هويغا آخرو وما يستدوري
هذه مثلية ودقا وهلسة هذه مثلية ودقا وهلسة أنا كان معنا إبراهيم أن طبعا تابع يهدي وطبعا رواية سي أن أفرطها صوت كودة تيرين أن محمد إبراهيم ورسمي هدراوي أيانا عريي أن مركز لقي معدو مرحوم محمد ورسمي قاسالي رواية كلا أما هيسا كلا وقاضي حلو حسوسا كرا وحكيتي رواية كوني سيغال بغني كوي سباسي كذا باتي أو دعر لها محمد آدم دعر واي أو كلا شقيس ودعري شاقي واي أو سيقولوا قري رواية دا سبح كجرتا سيقولوا كحسوستي دعر هاسي سارسي الله قاعدة محمد ورسمي يسار سياد واي رواية مقعد وحل أوريجي رواية لقوني مدح ما دافته لقوني مدح ما دافته واي marka heesaha ku jiray heesta ugu caansan heestii si saarisay oo qaadaan bay oo wax tirada maxaan ku leeyahay idib gacmaha aan wahagaag waa saara siyaad iyo Allah naxariistay Maxamed Warsamay Qaasali bal hadda inuu in yar dadweynaha dib u xasuusino wan ku dhehdaayo aan kula dhaco حد كشي سيدا دبيغايو تدهريريا ودغانيا خبريو دارار الكلاي دوتا دودوديا خبريو دارار الكلاي دوتا دودوديا ku dhehdaayo aan kula dhaco duuxad gashi sida debigaayo tadhariiriyaan u dhuganaya habeniyo dharaar halkii lay dhugtaan dooddoodiya habeniyo dharaar halkii lay dhugtaan dooddoodiya igu soo dhowow ii dhib gacmaha igabanahu ku dhimanaye igu soo dhowow ii dhib gacmaha igabanahu ku dhimanaye حمشو صاحب هاس كلا أو آدو في عام وسميت لحد راوي واي هاس تسوى هاس دهر ميسي قد صدق كيف سكتير يا واي ميسي يقعد على عبد الكريم شيء عبد الكريم فارح قاري وعبد الكريم شيء هاس تاسين انت هاس تي كواد يبصنا يقعد كذا من ميسي كذا مش بدلو
أنا حلو وقتي يسوق تجلسي أم يقول يرجلسي أنا سمين كره هسه كلام فرق بدن oo isbedbedela وقتي وضل أي شيء عليه هسه وحلا هذا ولا يأتي من حد waa la yaadimay markii ugu horeysay heesta wax qaaday maxamed warsame qaasir hadal uu dhibay laakiin bulshadeen wax laga imka dadka koorayaan maxamed waa qaaday ama xasan aadan ama axmed rabsha war waxa ninka qaaday ee lahaa markii koowaad anu wandhigeysta waan garanay way iyadoo duuban maxamed warsame ayaa iska lahaa qaaday waan gartaa Allahu naxariisto aynu ka nimaadno maxamed warsame qaasali macallin buu ahaa nin fanka wax weyn ku soo kordhiyay buu ahaa shakhsiyadiisii maxaynu ka sheegi karnaa in qof nooce ah buu Allah ha naxariisto waxaan la kulmay dad fara badan qaar isku khalaasayeen way qaarna oo macallimiin ah way oo mas'uuliyiin oo dad waaweyn way oo mudanka bulshadeenna xilli hore waxay ka sheekeen ninkaasi inuu ahaa nin aad u wanaagsan marka laga hadlayo xagga akhlaaqdiisa xishoodkiisa edebtiisa dadnimadiisa wuxuu ahaa nin aad iyo aad u gobasaday sheegeen way anigu waxaan isbaranay Allahu naxariistay dhowr iyo sagaashankii Faisal Umar Sabas kale gadab hilirtigana way laba jeer ama saddex jeer baan maraynaa inaan saaranay ninkaas wuxuu ahaa nin aad iyo aad u afkaaban oo edeb badan oo dhowrsoon oo xishood badan dadkii ay nolosha soo wadaageen ay danta faraha badan soo wadaageen waxay ii sheegeen inuu sifaha intaan ku sheegay marka waa adoon la mahadiyay buu ahaa Allahu naxariisto funky iyo dhaqankii kaalin intee lag ayuu kaga jiray baas leedahay mise ama kaalin intee lag buu ku banayn karayaa funky Soomaaliyeed wallahi kaalin weyn buu kaga jiray intaas isagoo funka xilli hore ka tagay oo uu ka fikiray sidii wax ka sii weyn uu sameyn lahaa maxamed Doris baad ku gadatay Allahu naxariisto dadkii ugu horreeyay tagay gadar buu ahaa shaqo fiican uu kaga askarinimo noqday hadaba nin mutacallim sarkaal buu noqday family-giisu waxaasay koronay dad fara badan ku beeray meesha family-gooda waxaana ka bartay sharciga uu haystay sharciga ugu sareeyay gadar nin bulshada halka joogtay aad u ixtiraamto sida uu sheegay dhaqan fiican oo dhowrsoon buu ahaa Allahu naxariistee isagu fanka xilligaas ugu dambeysay laakiin wuxuu la mid yahay isagu dadkii isagoo kala ahaa markii ay diyaariyeen maadaama xilli hore waxaan bilaabay dawlad noqday waayay cid halkii ka sii hana qaada fanki in buu la mid yahay wahag maxamed warsame qaasali qoyskiisii ama noloshiisii yani muxuu ifka kaga tagay wallahi ma tirin karo laakiin family-giisu aad buu baday family qoys ballaaran buu ka tagay taariikhda maxamed warsame qaasali daawadayaal kule barnaamijkan waanu ku milicsanaynay ugu dambeyntii Ibrahim maxamed warsame qaasali marka riwaayadaha uu jilayo kasokow inuu actor heesa uu ahaa qaybaha kale ee kala duwan ee masraxiyada ama ka qayb qaadan jiray كل قف مرة وين عمان دعونا فرصتنا هنا دعونا ويدين أدي بالبحر هرمتي الله يلاقي أبينا حتى ريكوردين كود أما دوبيتان كود يعني هذه الرواية يبقى يمثل كلام ريكورد عندك مثلا شيء عاد ولا مدوبي كلام لكن حنكون رواية كل دلوقما منين منو مثلين هذه أنا هاي بفكرتي ولا إنه حفظه أما كوهبون لكن أصلا المهم كده كي ومعنا هو هنشوف ده لو نقدر نشوف البروفيسور شيء ما هو إنه هاني كان هذا حشو مركز هذا دوسونه خشرات هذا حشو إن وكلي وحوين وبلوغي فنك الصوماليات بو أيو لا كان قاضي لحدمية وأنا حلية كلي فنكو مركا ومال سرنا قاري رنتي كوبنانا سوق بعيد سؤال شيء ذو حيتهاي واحد شري رق فربضان أو كلمة هبلها بوحين شري أو حلي قاصد فنكو طيقها سيدا يقول مقالة على ونحرسته عمر دولي محمد يوسف عبدي يعني كلمة هبلات بيمرمر بوحيان qofka ugu horeeyay ruux dabar matala Umar Duulaha riwaayadu sameeyay Allah naxariisto xasan farax kunsi ka boqol shan oo jira antri abla caban lagu dhigay markii koowaad halkiisa lagu dhigay markii daba caban loo qaaday way
isaga waxa haddana usii ahaa adeegto assistant nin kaloo dadku aanay aqoon oo loola jiray xasan gelin xasan warsan cali barzi xasan gelin jawaan oo adeegto u ahaa oo isagoo gabadh matalaya marka ma jirin dumar nin baa ugu horreeyay wax dumar matala marka Yusuf Alawn xaristo wuxuu soo galay riwaayad 9 la sameeyay wuxuu ku matay gabadh leena sagal sidoo sheegay Alawn xaristo riwaayada lafteeda waxa jecel macallin suulo lahaa riwaayada saddexda soo ka soo baxday marka qasaali oo kale kaalmaha uma marinayo marka fanku uu noolaa dad kuriyo kala jiray isaga jiray maxaan ku dad fara badan kaalmaha matala xagga hal abuurka miyo suduudku wax uu maaragtay uriyo wali oo muuqda aan garanaya laakiin dacruhu ay sheegay inuu haamin iska fiican oo ku fiican qoraalka riwaayada oo soo saara okay riwaayaduhu dejin jiray riwaayado la hadda aad ugu shaqeeyay qoray aad ugu shaqeeyay waagag aad iyo aad baadsan tahay Ibrahim heesaha talantaaliga ah iyo kuwa lala qaado marka laga yimaado hees waxa jira ama subcisa noqdo ama heesi qaraamiga ahaayo kala way oo bulshada ay aad taqaan way hees cabdi al-xaad baa cabdi qays hees talafta la xanka bishir xadiba waxa jira heestaasi oo bixi baxay soo dagala barsad talaftiisa maxamed okay maxamed nuur garigana waan ku maqlay kulay anigu maxamed warsan ayaa marka koobaad qaaday oo bixi baxayo bashir xadiba joogay okay waxa jirta هسه أحد وأخوه شغال مغني أحد ها كان وأخوه لا يتم أحد وين وما مغني واحد من الناس يسوي هسي ما يطلعين لمثلا أنت فنك كوسي شيء لكن أنت أو كوسي وحشمة كسودح إن كان أدو كسودح بحي وهاك داودين إن إبراهيم علي أحمد إبراهيم علي علي أديات بدو ما سنتهاي إن تاريخ كوبان وأنه كل سنة إني تاريخ دي فناد وكبحي مرحوم محمد ورسمة قاسالي oo shantii bisha January ama bisha koobaad 2018 ku geeriyooday Dooxa oo wadanka Qatar rabbi naxariistii jannaha ka waraabiyo bulshadii iyo qoyskii iyo ehradii iyo intii ka baxayna samir iyo iimaan saadiq Allah ka siiyo ayaan leenahay marxuum maxamed warsame qaasali oo ahaa macallin weyn suugaanyahan isla markaana fanka iyo dhaqanka aad uga dhaxaan ahaa isla markaana ahaa fanaan weyn oo guud ahaan gayiga Soomaalidu degto laga wada yaqaano ayaanu intaasi ku soo afmeeraynaa ku soo gabagabeynayna wuxuuna idinka imanayay stuudiyaha dhexe ee telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa Ibrahim Ali Ahmed Cuule oo ah nin ku xeel dheer suugaanta iyo dhaqanka isla markaana wax badan nala gorfeeya oo aad ugu xeel dheer aad iyo aad ayaan Ibrahim kaaga mahad celinayaa waqtiga wanaagsan ee aad nasiisay guud ahaan barnaamijkaasi milicsiga faneed ee Maxamed Warsame Qaasali ayaanu inahaasi ku soo gabagabeynayaa tan iyo mar kale dhankayga waaniga Xamse Suud Nuur iyo Ibrahim Ali Ahmed oo waqtigiisa qaaliga ah uga mahad celinayo iyo dhamaantayo bahda stuudiyaha telefishinka qaranka Soomaaliland waxaan idinkaga tagaynaa kulanti dambe oo qiimo leh aynadaadigu talisaad ayaa mahanismoode ilaahina weynba amarkiisu fulaya aynadaadigu talisaad ayaa mahanismoode kal gacal qaba wadigii abaalayga kal gacal qaba wadigii